daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo uga barateen barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi Hindiya u dhashay. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu kaga hadlaynaa Kajal oo sheegtay inay gurigooda xaaqi jirtay nadiifin jirtay musqulaha guriga ku dhex yaala. waxa ay sheegtay qofka bini'aadanka ah waxa muhiim u ah bay tiri inuu shaqo qabto ha yaraato ama shaqadaasi ha weynaatee waxaana intaas u sii dheer bay tiri waa inuu xushmeeyaa shaqada uu qabanayo markaasi oo uu ku qanacsan yahay. Kajal ayaa hadalkan ka soo yeeray kadib markii ay la shaqaysay director-ka weyn ee Aaron Lee Rai filimka Zero oo uu jilaaga ka yahay Shah Rukh Khan. filimka sidoo kale waxaa tirishooyinka Katrina Kaif iyo Anushka Sharma hayeeshee waxaa ku jira Kajal iyo aktarada kale ee Rani Mukherjee ee naadeerteed ah waxaana ay ku leeyihiin special appearance muuqaalo kooban. labadan hore waxay u wadaageen waa Kajal iyo Rani filimka Kuji Hota Hai. filimka ugu dambeeyay aktaradan ay la daadiiso jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan waxa uu ahaa filimka Dilwale waxaana ay ka mid tahay atirishooyinka filmadii ugu wanaagsanaa la daadiyay jilaagan caanka ee Shah Rukh Khan. waxa ay sheegtay waxa aan Shah Rukh Khan la soo duubnay bay tiri filim duubitaankiisu uu gaarayay muddo nus saaca aad ayaan ugu faraxsanahay bay tiri inaan la shaqeeyo Shah Rukh Khan. waa shakhsi waxay tiri ammaan mudan waa shakhsi markii aad la shaqaynaysid bay tiri 300% aad ugu farxaysid inaad asaga wax la qabatid. waxa ay tiri waa actor markii uu wax jilayo ay adiga shaqada aad la qabanaysay aysan wax caajisa ku galinaynin ayay atirishadu hadalkeeda sii raacisay. aktaradan ayaa waxay ka mid tahay atirishooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay ka fariistay jilitaanka filimada shirkadda Bollywoodka waxaana ay tiri muddadii ku dhaweyd 30 sano oo aan ku soo jiray jiliinka shirkadda Bollywoodka waxyaabo badan ayaan ka bartay bay tiri. waxa intaasi sii raacisay waxa dhici jirtay bay tiri in hal saac subaxnimo aan bilaabo in aan Shah Rukh Khan la shaqeeyo ilaa 3 saac oo habeenimo aan ku gaaro bay tiri iyadoo waqtigaasina aanan ku jirin bay tiri qol mukiif iyo meel raaxo leh oo aan waqtigaasi ku shaqaynaynay bay tiri goob adag waana ku faraxsanaa bay tiri. waxay intaasi sii raacisay qofka bini'aadanka muhiim ayay u tahay bay tiri inuu shaqeeyo. dad ayaa isweydiinaya Kajal iyo Shah Rukh Khan aad ayay isugu wanaagsanaayeen balse maxay tahay muuqaalkan kooban oo ay filimka Zero ay wax kala jilaysa jilaaga bay tiri. muuqaalku ha koobnaada bay tiri ama ha badnaado muhiimaddu waxay tahay bay tiri qofka inuu shaqeeyo. Kajal waxa ay sii raacisay aniga shaqada ha yaraata ama ha weynaatee in la qabto waxaan ka bartay bay tiri aniga hooyadeedna waxaa lagu magacaabaa Tanuja. waxay tiri hooyaday waxay soo bartay caruurnimadeedii in aan shaqeeyo ha yaraata ama ha badnaato. waxay tiri aniga caruur ayaan dhalay caruurteedana waxaan baraabay tiri qaabka guriga ay u nadiifin lahaayeen musqulaha qubeyska iyo dhammaanba wixii guriga looga baahdo. waxa ay tiri guriga haddaysan shaqaale kuu joogin waad ku qasban tahay bay tiri inaad shaqadaas adigu qabato. waxay intaasi Kajal sii raacisay qofna shaqada uu qabanayo maahan inuu ku tilmaamo waa mid yar anigu ma qaban karo ee qof kale ha qabto hadday yar tahay waa inaad tixgelin siisaa bay tiri shaqada aad adigu qabanayso waayo cid kale oo kuu qabanaysa ma jirto. Kajal ayaa waxay ka mid tahay dadka u ololeeyo arrimaha bini'aadanimada haatanna waxa ay wakiil ka tahay hay'ad la dagaalanta cudurrada dhallaanka ku dhaca iyada ayaana wakiil u ah. sidoo kale waxa ay sheegtay muddadii ay ka shaqaynaysay jiliinka filimada inay uga wanaagsanaan lahayd inay qabato shaqooyin kale oo ku saabsan dhanka bini'aadanimada. Kajal ayaa waxa ay ka hadashay hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya isaga oo sheegay in dalkan uu u baahan yahay dhammaanba qof kasta oo waxgarada inuu u istaago sidii asaga markaasi goobta kaga aadan ama meesha munaasabka ka ahayd oo wax uga qabto. hadalkaasi aad ayaan ugu taageersanahay bay tiri shakhsi kasta oo Hindiya u dhashay waa inuu istaagaa oo shaqo dalkiisa u qabtaa. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay atirishada caanka ee Kajal oo dhaxday jilaaga caanka ee Ajay Devgan oo ka hadashay muuqaaladii koobnaa ee aktarka caanka ee Shah Rukh Khan filimkiisa Zero ee uu leeyahay director-ka weyn ee Aaron Lee Rai ay duubista ay ku lahayd. daawadayaal barnaamijkaas intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. barnaamijka waxaa idiin daadihinayay anigoo Caaqil Cabdi Faarax waxaad ka daawanayseen Saxafi Films inagoo isku duuban oo apaata saxafina intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.